السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena coursekeeni baan kusoo jirnay complete wordpress website projectkii ugu horeeyay oo ahaa portfolio website. marka muuqaalkeeni koowaad waxaan kusoo dhisnay saddexdan shay: top barka, headerka iyo footerka. muuqaalkeeni labaad waxaan ku sameynaynaa waxaan ku design gareynaynaa pageska websitekeena ayaan design gareynaynaa anagoo isticmaalayna page builder la yiraahdo Elementor. talaabada koowaad ee qaadaysa waa maxay? halkaa magaca websitekaaga tag, dashboard tag, kadibna page builderka Elementor la yiraahdo ku shubo. waase plugin weeyaane. plugin tag, add new plugin deh. add new plugin markaad tiraahdo halkan ka search garee page builder. page builderka markaad ka search gareyso waa ka ugu wanaagsan baan filayaa. 5 milyan in ka badan baan install gareysay. install now deh. activate kadib deh. waxaynu ugu horeysiinaynaa sectionka koowaad oo ah sectionka headerka ayaan design gareynaynaa. okay, sida markuu ugu soo baxayaa iska soo xidh madaskaa kusoo dhufo. pages baad tegeysaa. pages markaad tagto all pages baad tegeysaa. all pages markaad tagto waxaad tegeysaa homekaaga. homekaaga waa inuu ahaadaa front page. edit baad oranaysaa. edit markaad tiraahdo waxaad oranaysaa edit with Elementor. sida usoo gasho halkan baad ka design garanaysaa. waxaan sameynaynaa page builderku wuxuu ka kooban yahay container, laakiin containerka waa iska bedelnaa. waa versionkii ugu dambeeyay. waxaan ka dhiganaa section. sida section uga dhigno waxaan tegaynaa dashboardkeenii. waxaan tegaynaa Elementor settings. marka waxaan iska soo features baan kasii tegaynaa. features markaan sii tagno halkan ayaynu inactive ka dhigaynaa waxa la yiraahdo Firefox container. Firefox container waa powerful tool of CSS. marka si fiican baynu u fahminaa sections markaan doorano, sababtoo ah containerkan waxa uu combine gareeyay laba shay oo kala baxsanaa awal. oo ka koobnaa 3 shay uu ka koobnaa. shayga la yiraahdo page builder. page builder wuxuu ka koobnaa section, column iyo element. versionka cusub ee imika waa container keliya iyo element. container iyo element keliya weeye. markaas kan baa yara koofinayaana. qaybtaa ugu horeysa ayaan sameynaynaa. headerkana waxaynu ka dhiganaa transparent. okay, halkaas dul taagan waa add new section. marka hore container bay ahayd. waxaan leeyahay section full column ah, full width column baan soo gashaday. height halkay ku taalo ayaan horteeda ku dhufanayaa. mini height baan leeyahay. kadibna waxaan leeyahay 500. 500 baan ka dhiganayaa. 510 baan ka dhiganayaa. okay, 510 markaan ka dhigto halkaa 4 geestaasaan ku dhufanayaa si aan dib uga noqdo aan element cusub soo gashado. heading baan kusoo drag gareynayaa. heading markaan kusoo drag gareeyo center ka dhig baan leeyahay. halkaa magacayga ku qorayaa dibadna. okay,
مثلا magacayga ugu qoro haddana halkaasaan ku dhufanayaa waxaan kusoo daragaraynaya image saasaan u dul saarayaa qoraalka kadib halkan waxaan leeyahay choose image waxba iguma jiraan waxaan leeyahay select file kaasaan soo qaadan open baan leeyahay select baan oranaya hadduu saa kugu soo dhawaado halkan oo kale ayaa click la siiyaa sidii uu kaa fogaanay aan iminka yareyn resolutionkiisa waxaan ka dhiganaa 150 okay halkaas wuu inaga tegey markaan intaas sameyno waxaan soo gelinaynaa section bayn tegaynaa markasta mid kastoo aad wax ka qabanayso markaad halkan click soo siiso halkaas soo muuqanaya edit section ma joogno column ma joogno kan waa column elementkana ma joogno sectionka waxaan tegaynaa style markaan tagno backgroundka waxaan oranaynaa classic markaan nidhaahno colorka waxba ka qaban mayno halkan ayaynu tegaynaa waxaan soo qaadanaynaa image bayn background ka dhigaynaa okay upload files baan leeyahay select files baan leeyahay downloads sawirkaas baan soo qaadanayaa select baan leeyahay okay sidan buu soo baxay full buu leeyahay waxaan ka dhigaynaa medium large markaan ka dhigno 5 qodob ayaa ka hooseeya 5 qodob waxbaa laga qabanaya kan waxaan leenahay center attachmentkina waxaan leenahay fixed repeatkina waxaan leenahay no repeat display sizekina waxaan leenahay cover okay intaa markaan saa u sameyno backgroundka ishaas waynu iska laabaynaa waxaa noo soo baxaya options kale waxaan soo furaynaa isha background overlay markaan soo furno waxaan leenahay classic haddana baan image waxba ka qaban mayno laakiin colorka ayaynu ku dhufanaynaa dabeedna color ayaynu u sameynaynaa okay inta ayaan ku dhigaynaa opacityga waxaan ka dhigaynaa 6 baan ka dhigaynaa bes halkaa u dhaafi mayno waxaan sameynaynaa sawirka afargeeska ayaan waxaan ka dhigaynaa circle waxaynu ka dhigaynaa mid animation leh okay sawirka clicksii edit image marka uu kuu soo baxdo waxaad sameynaysaa style baad tegeysaa saddexda option style baad ku dhufanaysaa style markaad ku dhufato hoos baad u soconaysaa waxaa kuu soo baxaya border type iyo border radiuskaas linki halkan waa linkiga kala furmaysid way isku xidhnaanayaan marka mid qura ayaad waxooga dhaqaajinaysaa wuxuu wada dhaqaaqayaan topkan ayaad kor u kaxaynaysaa wuu soo dhawaaday halkan baan ku dhufanayaa halkiisii uu tegay okay dabeedna isaga ayaan haddana click soo siinayaa saan u delete gareeyo dabeedna halkaygii baan imanaya okay kor baan u wadayaa afarta way wada socdaan adeertaa dhinacyada kusoo xoodmayaa ilaa uu circle noqdo ka dayn maayo circle buu noqday okay circle markuu noqday waxaan kala u sameynaynaa waxaa jira color border baa jira ku wareegsan marka borderkaasaan u sameynaynaa waa kan border type waxaan leenahay solid markaan ka dhigno waxaan leenahay waa 1 pixel markaan ka dhigno qaradiisa border colorka ayaynu isna sameynaynaa waxaan leenahay black haddaan 2 pixel ka dhigo waxaa igu yara muuqda imika haddaan 2 pixel ka dhigo
marka uu yaro muuqday. Okay, intaas markaa naga eeg waxaan sameyneynaa magacaas aanu edit gareyneyno iyo kaa hooseeya labada button. Okay, waayahay qoraalka kaalay elementiga clicksii edit shading markuu ku yiraahdo style tag markaad tagto qoraalka kalarkiisa caddaan baan ka dhigayaa. haddaan marka dhigo typography horteeda saakay marka hooseeso farta waxaan ka dhigayaa Montserrat. halka kuwaasaan ka dhigayaa sizekeedana waxaan ka dhigayaa 50 baan ka dhigayaa dabeedna 500 baan ka dhigayaa. Okay, waxaan soo gelinayaa halkan afar geeskiisa ku dhufanayaa headingka labaad ayaan heading baan kusoo daraagareynayaa center baan ka dhigayaa. center markaan ka dhigo waxaan ku qorayaa qoraalka wordpress developer and digital marketer. style baan tegayaa. style markaan tago kalarka caddaan baan ka dhigayaa. haddaan markaan ka dhigo typography-ga waxaan ka dhigayaa robotan farta ka dhigayaa. farta markaan dhigo sizekana intaasaan ka dhigayaa meero kordhinayaa. Okay, weightka waxaan ka dhigayaa 600 markaan ka dhigo plain modekaas ayaa harsan. fartaas waxay wadataa plain mode bay wadataa. Okay, aan click siiyo headingka style baan imanayaa. style markaan imaado plain mode waa kan waxaan ka dhigayaa difference. intaa markaan saa u design gareeyo waxaa ii hadhay labada bottom ayaa ii hadhay. labada bottom waxaan sameynayaa halkan afar geeskaas ku dhufanayaa deedna bottomka waa kan saasaan u daraagareynayaa qoraalka ugu hooseeya hoostiisa ayaan saa u sii deynayaa. dabeedna waxaan leeyahay centerka marka uu noqdo kan click here qoraalka waxaan ka dhigayaa hire me ayaan ka dhigayaa. markaan ka dhigo wax kale halkaa ka qaban maayo. waxaan tegayaa halkan markaan tago style markaan tago colorka ayaan xoogan usoo sameynayaa. kalarkiisa kaasaan u deynayaa. kaa markaan u daayo waxaan imanayaa halkan border areaska ayaan imanaya. saas iyagoo iskugu xidhan linkiga ayaan waxa weeyaan dhinaca sare u wadaya. Okay, waxaan filayaa inuu qaabkii noqday. Okay, markaan sidaa idhaahdo waxaan sameynayaa padding baan sameynaya. paddingkaan sameynayo
haweeneydan waan kala furayaa mid walba markaa waxaan siinayaa wax gaar ah topka waxaan leeyahay 15 bottomkana waxaan leeyahay 15 rightka waxaan leeyahay 25 baan leeyahay leftigana 25 baan leeyahay okay marka intaa ka dhigo waxaan doonayaa inaan u sameeyo border sida kan oo kale marka saa la dul istaago uu meesha color ka baxo borderkaas soo haro okay waxaan tegayaa hover normal vision hover baan tegay hover background tape color ayaa imaanaya okay color ma jira baan leeyahay marka la dul istaago okay marka halkaa joogo halkan baa tegay normal baan ku noqonayaa normal markaan ku noqdo border tape ayaan tegayaa waxaan leeyahay solid markuu aan yidhaahdo waxaan leeyahay border widthku waa 2 colorkiisuna waa akhtar weeyaan baan leeyahay markaas sidaas markaan u dul taago wuxuu soo hara colorkaas borderkaas oo keliya intaasaan ku dhameeyey kaa marka intaan ku dhameeyo ka labaad ayaan sameynayaa ka labaad wax kan baan oranayaa duplicate right click duplicate baan leeyahay markaan duplicate yidhaahdo kan ayaan dabeedna edit oranayaa isaga maxaan ka bedelayaa isagana waxaan ku qorayaa higher mida about me baan ku qorayaa waxaan sameynayaa waxaan tegayaa style markaan tago waxaan leeyahay hover markaan yidhaahdo normal baan joogaa normal waxaan leeyahay colorka backgroundku waa black baan leeyahay borderkuna waa black aan filayaa imika inay isku mid yihiin okay waxay hadhay inaan isbarbar dhigo saan isu barbar dhigo waxaan soo qaadanayaa intersection ayaan soo qaadanaya halkaas ayaan saa u dhigayaa marka halkaas saa u dhigo kan halkan baan dhigayaa columnkaasaan ku dhex ridayaa kanna columnkan ayaan ku dhex ridayaa marka saa ugu dhex rido kan edit haddaan idhaahdo waxaan oranayaa keliya intaan contentiga tago optionka ugu horeeya ayaan oranayaa kan waxaad tagtaa right kanna waxaan oranayaa edit markaan idhaahdo isna intaan contentiga saa u tago ayaan oranayaa lefti tag qaybtaana waa inaga saa u sameynay adiga ayaa waxa weeyaan wax badan oo designkaaga ka dhigi doona qaybtaas ayaan imika soo dhigayaa waxa la yidhaahdo transparent sida transparency uga soo dhigo waxaan tegayaa appearance customize sidan marka ugu soo baxo waxaan tegayaa header baan tegayaa header marka tago general baan dooranayaa general marka tago halkaa waxaa ku qoran minimal style minimal waxaan ka dhigayaa transparent okay publish baan leeyahay publish markaan idhaahdo waan iskaga soo noqonaya qaybta labaad waxaan design garaynaynaa qaybta skillskaas ayaan design garaynaynaa okay waxaan tegaynaa pageskenii
home page baan tegaynaa home page waxaan leenahay edit with elementor kuwa kale maaha waa home page okay qaybta labaad maxaan sameynaynaa waxaan leenahay add a section add new section markaan nidhaahno heading baan soo gashanaa heading markaan soo gashano waxaan leenahay centerka tag about me baa la yihahdaa about me colorka ayaan ka bedelaynaa style baan tegayaa colorka ayaan ka bedelayaa waxaan leeyahay black nooga dhig black markaad nooga dhigto waxaan leeyahay typographigana waa robotada u daa meelaha ka dhig kutan 300 ka dhig okay intaa markaan ka sameeyo halkan waxaan tegayaa halkaa dabeedna waxaan leeyahay intersection baan soo gashanaya intersection ayaan saa soo gelinaya intersection markaan soo geliyo waxaan sameynayaa halkan baan tegayaa afargeeskaas dabeedna text editor baan soo daraagaraynaya columnkaas ayaan ku dhex ridaya columnkaa markaan ku dhex rido haddana halkaas soo ku noqonayaa waxaan soo qaadanayaa progress bar isna columnka labaad ayaan ku dhex ridayaa okay my skillska waan ka jarayaa waxaan u daynayaa oo keliya count edit baan odhanayaa waa tan my skillskaas meeshaan ka saarayaa okay web designer halkan ayaan click siinayaa mar walba dabeedna duplicate baan odhanayaa mid kale ayaa samaysmaya haddana duplicate haddana duplicate kan isna edit baan saa odhanayaa haddaan qoraalka soo qaato aan dabeedna sidaa ugu bastigareeyo okay waxaad moodaa sectionka ayaa inaga yara gaaban sectionka ayaan edit odhanaynaa sectionkan odhanayaa edit dabeedna waxaan odhanayaa 112 okay markaa kuwan xirfadaha waad kordhin karaysaa mid walba dushiisa ayaad radclick odhanaysaa radclick markaad tiraahdo waa kan percentage waxaan leeyahay web designka waxaan ahay 191 web designka weeyaan baan leeyahay ama waxa weeyaan waa html baan ka dhigayaaba html and css baan leeyahay haye kan labaad baan imanayaa waxaan leeyahay javascript waxaan leeyahay javascript okay kan saddexaad baan imanayaa waxaan leeyahay wordpress waxaad doontaa baad ka dhiganaysaa isna waxaan leeyahay hasaanahay waxaad doontaad ka dhiganaysaa web design waxa web designer graphic designer baad odhanaysaa haddaad doontid ama ux okay saas ayaad waxa weeyaan u design garanaysaa toolbarka markaad saa u design garayso waxay noo hadhay colorka labada color okay waxaan tegaynaa sectionka ayaan saa u joognaa section baad tegeysaa section markaad tagto stage baad ka tegeysaa okay stage markaad tagto waxaad leedahay background class with origin imika waxaad leedahay gradient markaad tiraahdo waxa weeyaan color second color middle location buu leeyahay colorka koowaad waad haystaa
extensionka color sealer oo ah color picker. Marka waxaad oranaysaa color pickerkaas ayaad click ku siinaysaa. Click markaad ku siiso waxaad tegaysaa website-ka aan ka raacayno, dabeedna tusaale markaad website-ka tagto ayaad click siinaysaa color sealer, dabeedna sidaas u istaagaysaa colorkaad joogto, dabeedna click baad ku siinaysaa. Wuu kuu copy gareysmay already, dabeedna waad ku paste garaynaysaa, halkan baad ku paste garaynaysaa. colorkii koowaad waan sameeyey, waa laba color. colorka labaad the locationkiisa colorka koowaad waa 50% maalan 50%. colorka labaadna wuxuu noqonayaa cadaan buu noqonayaa. Okay, locationkiisu waa 50%. okay, isna waa 50%. tape linear ha ku ahaado, linear markuu ku ahaado waxaad leedahay 90% haddaad ka dhigtana adaa xora, haddaad doontana 270 baad ka dhigaysaa. 90 iga dhig aniga absolutely. intaas ayaan maanta muuqaalkiina ku joojinaynaa. labadaa qaybood ayaynu dhisan garaynay. insha allah mid kalena muuqaalka xigay ayaynu dhisan garaynaynaa. waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saarto, muuqaalkana like garayso, asxaabtaadana la wareegto. aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiinba. update baa ugu dambaysiinayaa.